Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa noqonaya madaxweynihii saddexaad ee Mareykan ah oo ay xilka ka qaadaan aqalka wakiilada ama Koongareeska Mareykanka. Donald Trump ayaa xilka qaadistiisa waxaa loo gudbinayaa aqalka sare ama senatarka, kaas oo go'aanka kama dambaysta ah ka gaari doona xilka qaadistiisa. Koongareeska Mareykanka ayaa u codeeyay laba dambi oo kala ah in madaxweynaha uu ku takrifalay awoodda xafiiskiisa iyo in uu ka talaabsaday sharciga Mareykanka. Labada arrimood ayaa ahaa kuwa salka ku haya arrimo xisbi oo waxaa inta badan xildhibaanada dimuqraadiga ay isku raaceen xilka qaadista madaxweyne Donald Trump, halka xisbiga uu ka tirsan yahay ee jamhuurigana ay ka soo horjeesteen. Codeynta ayaa dhacday xilli madaxweyne Donald Trump uu ka qaybgalayay olole doorasho. Waxa uu dalkii iskugu soo baxay Battle Creek ee Michigan u sheegay in isagoo ku howlan shaqo abuurista Michigan ay Koongareeska nacayb iyo in ay ka xun yihiin waxa uu sameynayo. War qoraal ah oo ka soo baxay aqalka cad ee Mareykanka ayaa lagu sheegay in madaxweynaha uu aad ugu kalsoon yahay in aqalka sare ay meesha ka saari doonaan xilka qaadista ay u codeeyeen Koongareeska Mareykanka. Aqalka sare ama senatarka ayaa waxaa ku badan xildhibaanada xisbiga jamhuuriga ee Donald Trump uu guddoomiyaha u yahay, waxaana la aaminsan yahay in ay meesha ka saari doonaan xilka qaadista ay Trump ku sameeyeen Koongareeska Mareykanka. Madaxweyne Donald Trump ayaa ku eedeysan khiyaano qaran iyo in dhigiisa dalka Ukraine uu ka codsaday sidii uu baaritaan ugu sameyn lahaa madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka Joe Biden oo horey uga soo shaqeeyay shirkadda gaaska ah ee